Assalaamu calaykum. Maalin kastoo ay qoraxdu soo baxdo waa maalin cusub. Waxaa dhammaanaya murugadii iyo walwalkii hore. Waxaana bilaabanaya maalin kaloo cusub oo ay la socoto farxad iyo reerreen oo aad ku xaqiijin karto hamiga iyo himilada aad leedahay. Haddii aad rabto inaad gaarto hadaf, waa in uusan waqtiga ku xadin, kana faa'iidaysato saacadaha yar ee aad haysato. Ha ku lumin waqtigaaga wax aan macno lahayn. Maalin kastoo ku soo marta waa qayb ka go'an cimrigaaga. Ha murugoon haddii uu qofku khiyaano ama uu kaa tago. La qabsi inaad keligaaga noolaato oo citaan alla ka ahayn caawimaad ha weydiisan. Wejigaaga ka yaal oo la caddayn soo jiidasho leh, xitaa haddii aadan gudahaaga ka dareemayn, si dadka kugu hareeraysan aysan u dareemin murugada aad dareemayso. Qofna ha ugu tagin in ama ceeb uu leeyahay, waayo dunidaani ma jiro qof dhammaystiran oo aan alla ka ahayn. Noloshu waa sheeko qurux badan oo ay tahay inaad akhriso ilaa dhammaadka. Weligaa ha ku joogsan xariiqda murugta, waayo dhammaadka ayaa laga yaabaa inuu qurux badan yahay. Haddii aad rabto inaad ku noolaato farxad, qalbigaaga ka sib xiqdiga iyo xaasidnimada. Waxaa laga yaabaa inaad ilowdo midka kula wadaagay dhoolla caddeynta, laakiin marnaba ha ilaawin qofka kula wadaagay oohintaada iyo ilmadaada, sidoo kalena garabkaaga taagnaa xilliyada murugada. Noloshu waa isugeen, kala goon iyo u qaybi. Isugeey oo aruuri asxaabtaada iyo dadka aad isjeceshihiin. Naftaadana ka jar oo ka fogow inaad kula dhaqanto dadka danaysinimo iyo baqeelnimo. Jeceylkaagana si siman ugu qayba dadka ku jecel. Markaa waxaad noqon doontaa kan dadkuugu farxadda badan. Imtixaanka noloshu wuxuu kuu noqon doonaa musiibo ama guulaysasho. Waxay ku xiran tahay sidaad wax ugu qabato. Guushuna ma timaado haddaan loo dhibaatoon, waxaana lagu gaaraa dadaal iyo shaqo adag. Inaad nolosha ku fashilanto waxaa u sababa inaad aaminto in dadkuba adiga ay kula jiraan oo adiga kugu mashquulsan yihiin. Irumayso cid ku danaynaysa ma jirto, ee dantaada garo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.